Asalaamu calaykum dhammaan. Ku soo dhowaada Zabo Media halka aad ka heli doonto sheekooyin xiiso leh oo ku saabsan dunida Muslimka. Maanta waxaan idiin hayaa liiska hal eber-ka haweeney ee ugu taajirsan dunida Islaamka. Qaar badan oo ka mid ah haweenkan waxay hanti ku heleen ganacsi, dhaxal ama maalgashi caqli badan. Aynu bilaabno. Princess Ameera Al Taweel, Saudi Arabia. Ameera waa gabar boqortooyo ah oo sidoo kale ah ganacsato iyo samafale. Waxay maalgelisaa mashaariic horumarineed iyo haweenka. Sheikha Mosah bint Nasser, Qatar. Mid ka mid ah haweenka ugu saamaynta badan Qatar, waxay leedahay hanti aad u badan, waxayna hormuud u tahay waxbarashada iyo horumarka bulshada. Lubna Olayan, Saudi Arabia. Waa madaxa shirkad weyn oo ganacsi. Waxay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee qabata xil sare bangi dalkaas. Sheikha Hanadi bint Nasser, Qatar. Qof aad u taajirsan, waxay ku caan baxday maalgashiyada guryaha, bangiyada iyo waxbarashada. Fawzia Koofi, Afghanistan. Inkastoo ay ka soo jeedo dal dhibaatooyin badan, Koofi waa siyaasi iyo qoraa, waxayna ku guulaysatay abaalmarino badan oo caalami ah. Raja Eesa Al Gurg. Waa ganacsato weyn iyo haweeney hanti badan leh, waxay madax ka tahay ururo badan. Sheikha Mayta bint Mohammed. Ka sokow inuu yahay xubin qoys boqortooyo ah, Mayta sidoo kale waa ciyaaryahanad iyo maalqabeenad. Sheikha Almayasa bint Hamad, Qatar. Waxaa lagu magacaabaa boqoradda farshaxanka, iyada ayaa hormuud ka ah horumarinta dhaqanka iyo fanka Qatar. Rania Al Abdullah, Jordan. Boqoradda Jordan waxay caan ku tahay taageerada waxbarashada, waxayna leedahay saamayn dhaqaale. Muna Abu Suleymaan, Saudi Arabia. Ganacsato iyo weriye hore, waxay haysataa hanti badan waxayna caan ku tahay samafalka. Haweenkan Muslimiinta ah waxay tusaale u yihiin kartida, hal-abuurka iyo hoggaaminta dumarka dunida Islaamka. Haddii aad jeceshahay muuqaalkan, fadlan like, subscribe ku